بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تروح كنت نستعجل دونا شركة جروا وكفر بقر برهان بقر موسى أو كاشرية سلطان جراسة أياد عيسو أموقده إفعالها يوحيالها عيسى يودن وشيء دونا وأنا دول استعجل دونا شركاس بقر كودنت أو كلها قضب بدل ربي لقاه صاروا boqorku doorasho weyn maamuun boodiyay inuu cagta ku dhufto rabay laakiin asagii bay shirkii cagta uga dhufteen waa dul istaagi doonaa waa sharaxi doonaa qodob kale aan dul istaagi doonaa waxa weeye ninkii ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Mahdi Guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka hore Soomaaliya Mahdi Guuleed oo beesha daarood iyo SSC xamanaya ayaa ayadana la soo qarxiyay oo isla isaaqi soo qarxiyeen maxawar jacayso waa garxajis waxa saawar jacayso soo qarxisay asagana waxbaan kaga taaban doonaa meelihii uu dul istaagay qodobka saddexaad ee dul istaagi doona waxa weeye meel kasta oo isimada daarood joogan baaq ayaan u diri doonaa waxaana ka codsan doonaa masayda isku dagaalaysa shabeellaha dhexe hadii la ku rooyahay abgaalka sheeganaysa abgaalku waa masayban isri dhaqanna ma leh diin ciisana ma leh saa arkay ee guriyaha iyo caruurta gubaysa waxaan doonayaa isimada daarood ama isimada habargidir ama isimada xawaale ama isimada hadii la ku rooyo burursade muslimka ku hareeraysan ee Soomaaliyeed inay sida ugu dhaqsiyaha badan arintaas ugu tagaan oo masaydaas cawaanta kala celiyaan baaq baan ka jeedin doonaa agoormar garowe shalay waxa lagu soo dhaweeyay boqor burhaan boqor muuse oo ah boqorka guud ee beelaha daarood boqorka waxa soo dhaweeyay ragii ugu cuslaa oo soo dhaweeyay waxa kamid ahaa Sultan Grace Allah xafide boqorka iyo sultaanku halka shir baan ku qabanaynaa bay dhaheen shirkaas ajandihiisa waa la sii ogaaday oo isimadii kale ee mandaqada ama isimadii geeska hadhihin bari hadhihin sanaag iyo hadhihin mudugba iyo nugaal lagu qabanayay isinkii matoobada dhigan jiray intuba ajandahay sii heleen ajandahaas oo ah mid ay mucaaradku riixayaan oo ah 66 baan u baahanahay in doorasho lagu qabto shirkaas waa la qaadacay cagtaana lagu dhuftay waxa ugu horeeya oo shirka cagta ku dhuftay sulda ninka la yiraahdo Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ah marka la joogo nugaal isinka buddigaha oo ah nugaal looga dambeeyo sidoo kale waxa qaadacay shirkaas inay yimaadaan Islaan Bashiir Islaan Cabdulle Islaan Ciise Islaan Maxamed Sultan Saciid Sultan Cabdisalaam waa al-Saldaniya warsangaliya fatsaligeedu yahay baran cagtu ku dhuft waana saldanadii guud oo harta ugaas Xasan ugaas Yaasiin oo ah ugaaskii guud ee beelaha hartiyaasna waa dishish halka ay bari beeldaaje Maxamed beeldaaje Ismaaciil beeldaaje guud ee Cali Saleebaan cagtu ku dhuft beeldaaje Ismaaciil beeldaaje Albari halka iyo Ali Ibrahim beeldaaje Ali Faarax halka iyo Siwaaqroon hadii la ku rooyo Sultan Cabdirashiid Muuse Shire garaadkii Dubays Saciid Maxamed Samatar Sultaankii Dubays Maxamed Cabdullaahi Cartan ismadaasi dhamaan iyo islaankii Islaan Bashiir Islaan Cabdulle ee mudug wax laga weydiin jiray iyo islaankii guud ee fadhiyay arrin nugaaleed oo nugaal ee u kala xirnayd intaasi wacagtay ku dhufteen markii la yiraahdo marka waa la shirayaa 66 doorasho laga akhrinsanayaa doorashada wax caam ah meeshaas waxa fadhiya Sultan Grace oo la leeyahay asaga dhigay gogosha iyo boqor burhaan oo isku babda ah iyo nimankii reer bari oo boqorku ku tirsan jiray oo geesaha ka fariisan jirayna falaysa minna way dhaheen falaysa minna waliba qaybtood sida beeldaajo kale oo hadlana waxay dhaheen kuma jirnooy dhaxdhaxaad baan nahay 66 anagu duulin mayno shirkaasi sida inuu ku dhicisoobay ayay u badan tahay hadii ay wax ka soo saaraan ama dhahan waa shirnayna garowe ila magac isimay ku hadlayaan nugaal oo islaankii fadhiyo mudug oo islaanka kala fadhiyo suldaanka iyo sanaag fadhiya iyo beeldaajaashii ugaasadii fadhiyay bari oo wada hadlayaan waxay dhahayaan laba qabno halkaasna ceeb iyo waji gabax ayaa ka imaanaysa boqorka marada kaga dhacaysa ilaahay marada kaba tuure ma boqorkeeni shirkaasi marka mid cusub oo yahay dhaga kale ninka la yiraahdo madaxweyne firdhiye oo shaqo soo dagay
magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka caasimadda SSC Khaatumo ayaa ku dhawaaqay degdeg in la isugu yimaado shirweyne beelaha hartiya halkaas iyo Laascaanood shir ka dhici doona ayaa ayadana isimadu uga arkisan doonaan saan filayo halka SSC iyo xaalka Puntlandba maadaama ay isimadii harti kaliya ma aha isimadii daarood leelkasaha dhinaca oo tablaha dhinac cid kasta ay isugu imaanayaan Laascaanood shirweyne daarood ah oo waliba mandaqada geeska SSC Khaatumo iyo Puntlandba ah la isugu imaan doono halka ayaa wax lagu jeexjeexi doonaa xaalka Puntland iyo xaalka diyaalka Reebaalkiba shirkaasina halkaas uu maraya oo shirkii halka boqorku yimid shir ka dhicisoobay ayuu ogyahay ilaahay kama dhiciseeyay qolkaas halkaas aan dhigay qodobkayga aan dul istaagay waxa weeye intaan mahdi guuleed soo laabtay halkaan meeshii la oran jiray shabeellaha dhexe naayo Soomaali baan nahay dad wada dhashay baan nahay islaam baan shabeellada dhexe waxa ka dhacayahay wax indhaha laga qarsan kara ma maalin dhaweyd waxaad arkayseen oo maalin kasta arkaysaan culumadayada Soomaaliyeed oo masaajidada Falastiin uga ducaynay barnaamijka Muqdisho lagu qabanay Falastiin inta barnaamijka Muqdisho ka dhacayay masuubadaan aan tusayo masuubadaani shabeelle ka dhacaysay shabeellaha dhexe ka dhacaysay walaalaheen weeye waa dad Soomaaliyeed ila daawo halka ka dhacay أنا واقف صاحبتي ورك أنا صاحبنا لا هو أنا كل دحدين halka waxa ka dhacayahay waa dad Soomaaliyeed oo islaynaya islayntu waa isdaanta rag waliba isdili jiray qabiil waliba isdili jiray war maatadii baa iska bireynaya guriyihii baa iska gubaya xoolihii baa la leynaya xoolihii ay ciyaalkii yarka iyo dumarkii baa la leynaya hooyadoo ilmaheedii wato naas nuujinaysa guriga ku jira ayaa baasiin lagu bilaya oo guriga lagu gubaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun markaan fiirshay bil ku dhow bay arrin socotaa bil ku dhow bay socotaa arrinta shabeellaha dhexe wax u damqanaya ma arko hawiye ka dhidhiyay ma arko abgaalku ma baleba wax isqabtaba ma leba waa masay dhashay waxaan ka naxay waxa hadlay imaamka abgaal asagoo leh madaxweyne ka soo laabaaniya habargidir ka soo laabo kaale dhulkaagi nabade waa madaxweyne qaran ninku leeyahay kaalay beeraha u garna asaguna waa iimaankii dhamaaya abgaal dhaqanka noocaas ka warhay ilaahay ku dharshay war waxaan baa u dirayaa oo codsanaya oo walaalayaal u leeyahay beeraha Soomaaliyeed habargidir adiyaala ku rooyahay murursade xawaale gaalceel gungundhabe daarood ma reexaan ma jeerteen dhul bahante adiyaala ku rooyahay dish war cid kasta oo daarooda ogaadeen cid kasta oo daarooda meesha ka dhow war ilmaade riyaal weelkase mudug baagitaan oo lowdin hawiye ilmaade riyaalow oo ilmaade riyaalow war ilaahay xaqiis loo dhawaanaysaa war isimada daarood baan la hadlayaa war kuwa hawiyaan la hadlayaa war walaalayaal masaydu dhashay fariinteeda gaarsiiyay isimada war fariinteeda gaarsiiyay war meesha qarni fog baa ka dhacay war waxaan loo adkaysan karin baa ka socda war hooyo iyo ilmaheeda la gubaya ka socda war haddii la ku rooyaa isxallin waaye war waa Rwanda Tutsi iyo Hutu baan wallahi oo bilaahi xasuusta ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hawiye daarood iyo raxan weyn waxaan leeyahay war waxa loo gurmado wax la kala celiyo war xaq Allah ugu dhawaanayna war magaci Soomaaliyeed dhulka la galeen weligay Allahay ma arag Soomaali islaynaysa xaq baan ka imid oo meel hawiye daarood isku laayaan baan ku soo koray weli ma arag hawiye iyo daarood islaynayo guriga iska gubay weli ma arag habar gidir iyo majeerteen islaynayo guriga iska gubay weli ma arag wax islaynayo caruur iska laynaya weli ma arag wax umrado noocaan waxa uu leeyahay waa laba reer wada dhashay waa abgaal gudihiisa waa harti abgaal way waxaas kor waa harti abgaal gudahooda ilmaade riyaalow oo dhaqanka Soomaaliyeed oo meel kasta joogtaan arinta xoogga saara war isamedira war dhaqan dira war waxa wixii afiiqa war hawiye daaro yaa loo kala xarin war arintaasi magac dil bay lagu tahay سمع الدل بينقطعي والله تويتر كان وحنا أركي يوانكي عدانكي وكهالله ولا هي والصومالي وحتى أسكو حسوقيس شلون سيد روح عاس مجا نومها والإسلام كم شيء كنا نوعاس والعلماء ما هي فلسطين ومدهرات يسي إلى هو فلسطين ولا عليهم بالجوبية وهو الصوماليين باباسين لقوا شوية والجورية دي بالجوبية وريا الناس كي فلسطين يرجع والعلوم أي مساجد كخد بيا أو الشيء نرجع ليان كويس جوبية أو الشيء كويس دليان نرجع ليان والأرجع حسي
iyo khawaarij baa ka dambaysa oo hubka isugu dhiibtay oo arxandarrada ka shaqaynaysa war ka hortaga war ka wacdiya ummadda war xumaanta ka nahiyay ummadda culummadan leh war ku weyne dhabaq lahaayee falastiin anaa maxakum ku hayeew war orda abgaal kala celiya oo masayda u dhashay kala celiya war fariintayda ummadda Soomaaliyeed dhan gaarsiiyay wax xoogadoo bacay baa meesha ka socda wax aan loo adkaysan karin baa ka socda intaasaan leeyahay iga raalaha ka daan ku leeyay laakiin wax damiir bini aadan daawan kara ma kuwii u dhashay Cabdiqaadir Boos ka mid yahay meelaha asoo taade hartii wax ku haya argaan actar war ma reerkaygu isu gubayaan dad soo dhax fariisan kara war ma mawduuc kalaam ka hadli karaa mawduuc kalaba mii furayaan ka hadlo war hatta Soomaaliya ma ugu dabqan waay dabgalnimo ugu dabqan waay wallahi meeshaan tagi lahaa lagu dilaa aniga bartaan tagi lahaa oo go'a dhigan lahaa oo tolaay dhihi lahaa hatta lagu dilaa dil rabe ajir taaydishi tolaay inta dhaho baan caalan ka dhex mudan lahaa meesha sababtoo ah waxa ku jirta aniga damiir aniga gubanay maxaan ka hadlaayo kale warinta waxa la dhalinyarada abgaal media ismaashileeyahay hawiye waxaan leeyahay war ilmaada reero ka dhiidhiyo waxaan war istaaga war ka qayliya waxaan war idaad wax kala qaban weydaan meesha taga oo calama ka muta hal idinku dilo idinku nabad raadinaya idinku kala celinaya idinku masaydu dhashay ee aad ka dhalateen idinku isdaayare naftaada ka baxalin idilay taga meesha wax Soomaali daawan kara maaha wax bini aadan daawan kara maaha caalamkan ugu caayo wallahi hatta dunida kama dhicin ilaa hadda gaal islaam dhaxmaray waxa soo kale Israa'iil iyo Hamas ma dhaxmarayso guri iyo caruur baasin lagu shubayo waa laba reer wada dhashay intaasaan la yahay fariintada aan reer gaarsiiya qof kasta muslima u sii sheergareeya ismada daarood iyo ismada hawiye waxaan leeyahay war nimanka loo jiray war habar gidiro hawaalo war idinkaan dagaal sharaf yaqaan war idinkaan isma dhaqankooda yaqaan war ilmaada reer hadaa wanina kac oo naga sii horeeya oo daaroodka u yeera oo kala celiya masaydu dhashay oo wax kala dhex dhiga intaas iga gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed ee damiir kale damqanaysa ismada dhaqanka yaqaan iga gaarsiiya intaas qodobkaas ka baxaya qodobkayga ku xiga andul isaga haweeye mahad guulada maanta hadlay maanta ma hadline group ay ku wada sheekaystaan qolyahan isaaqo ayuu ka hadlay calaa aad u tira badan waxa ku sheekaysta groupka waxa weeye xildhibaanada isaaqa ay xamar jooga calaa tira badan calooshu banaanka dhigtay caloosha ayuu banaanka dhigtay waxa kamid ahaa marka waxyaalaha aan la yaab kamid ahay wuxuu ka sheekeynayay khaatimo aqoonsigeedii uu ka sheekeynayay waxyaalo badan uu ka sheekeynayo xataa si barayfada farmaajo maray wada hadleen xasan sheekh waxay siiraahdeen khaatimo arinteedii in lagu qanciyay xasan iyo aniga iyo hadii la ku rooyahay iyo madaxweynuhu khadkan ku xasan yaarone musad mujuudaan iyo xasan iyo aniga iyo khadka lagu wada jiray waxaan la ka dhaadhiciyay biiri in ku meel gaar ay tahay aqoonsi adu waxyaalaha iska calaacala inta waxa si dheeraa ayaga dhexdoodii marka caloolxumada waxay ugu dilay ayaga dhexdoodii ku hadlay wuxuu yiri niman yahow qadiyad Soomaaliland ma inta gadayna meel sala taagan haddana wax talaa kama gallo oo xasan anaga na soo mari mayo Muuse na soo mari mayo waxaana la ogeysiin mayo Muuse iyo xasan habeen maalin bay soo caan bulo yahayo kol bay waxa kala goostaan annagoo qaylinayno cabaadayna cidna og ma jirto wuxuu leeyahay warkaca aan samayno aan kuwaan iskala hadalno si nimanka aan iskaga celino hawiye oo qadiyada uga celino aan kuwaan la hadalno oo aan dhahno war matalaada nasiya oo xogta nasiya oo waxa iska ogtiin nasiya si aanu annaguna idin la xoojino alaa albahar iskaga badnaa wax annaga nafsaameynayay ama xanta anaga ugu jiraa waxay ahayd inuu leeyahay si qaato in la aqoonsado oo 2 sano la siiyo Muuse iyo Xasan waa wada ogaayeen ana xogta haya Muuse lagu qanciyay Muuse waxa kala qaban yiri Muuse ana weydiiyay yiri Muuse wuxuu yiri waa okay 2 sano waa ku meel gaar waxaan lama aqoonsan adu taas u dhigay saas u dhigay luqad bilaasiyadna waa ahayd laakiin inta kale ayaga iscanaanayay waa ooyeen wuxuu leeyahay matalaad ma haysano waa baano waa hoglay wuxuu taagan yahay nimanka daarood ee meeshan jooga ee la challenge gareynaya ee Puntland iyo SSC ka soo jeeda degaankooda matalaad bay ku haystaan waxa ay nimankan hawiye kula dhil gareynayaan xagga way ka soconaysaa laakiin annaga waa imaanaysaa buu yiri waxa la xasan oo saaysa maaha wuxuu ku leeyahay Muuse ka wada hadal Muuse waxa ka wada hadalna dhamaysan
muusana xoogaa lacaga meel lagu dirayaa wax kasta saa kala tuuranaya annagii waa qayleena cid matalaada haysana jiro niman yahow Nairobi aan tagno shirar qabsano nimankan madaxda ee Soomaaliland fadhiya ama aan matalaadna si aan dhahno xogna si aan indifaacno ama aan faraha ka qaadno awal bacdo shaqaystayaal ma ahayn ana caloosha u shaqaysano intaas odagu marka caloosha furtay aad buu calaalay waxaan leeyahay على كلام حاجة أضوء سيدي أدبا السلام يا أنت أقول في مايو حاجة حد سمع لسه عشرين مهم ما هين عشت سيد عندك الصحنية أنا على قاعد كرش مهم إذا ما لكن أنت النحر كهيد وأنا عندك خصوصي أياك أنا على الكود هيد وأدي سنوجي أدبا السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تشاو